dhacday oo uu Ilaahay ku manaystay maal adduun lacagtii iyo maalkiina sida ay doonaan u isticmaalay ayagoona uba malaynin in ay lacagtaasi maalin maalmaha ka mid ah ay ka dhammaan doonto ugu dambayna masiirkoodii uu ku dambeeyay lacag la'aan iyo inay noloshooda dib ugu soo noqoto meeshii ay bilowgii noloshooda ay ka hana qaadeen iyo meel ka hooseysa muddadaasi ay nolosha u wacneed waxa ay qaadan jireen mushaharna kuwii ugu badnaa ee qof la siiyo qaarkood ayaa waxay u isticmaaleen kutumasho iyo inay si xun u adeegsadaan maalkaasi Ilaahay siiyey xagga qaarkoodna ay ku qaldameen lamaana khaa'imiin ah halkaasina ay xaaladoodii ku noqotay tiraantiro aan ka kabasho lahayn taawasho wacan barnaamijka oo dhammaystiran sidoo kale haddii uu barnaamijku qanciyo ha ka hilmaamin inaad like saartid siina share garaysid وحنا الجنال كدد وينها سبسكرايب صار أو كوسوبير فلن يغنيه مال وإن زاد ما كسب عياريان كوجو هرية باول غاس كوين عياريان كان أيا بلوغي لبدي كون وحاو آدغو صور دح موقدي عيارها كوبدا عagta isagoo isla markaana la soo banbaxay hab ciyaareed heer sare ah waxa uu ahaa ciyaaryahan marka uu kubadda qabsado ay aad u adkayd in laga reebo waxa uu guulo waaweyn u soo hooyay oo magac ku dhex yeeshay Tottenham Newcastle iyo Lazio ninkan ayaa waxa noloshiisii hoos u dhigay oo baabi'iyay cabida khamriga intaasi waxa dheer dhibaatooyin fara badan uu geystay kadib markuu khamriga aad isugu daldalay taasi oo sababtay inuu halkaasi ku waayo karaamadii iyo sharaftii uu lahaa walibana uu marar badan ku mutaysto ganaax sida in la qabto isagoo cabsan ama base isagoo cabsan inta gaariga ka haysto uu dhibaatooyin ku geysto sida inuu gawaari kale ku jiro ama base uu meelo qaldan dhigo intaasi waxa dheer inuu xaaskiisa gacan ugu qaado meelo public ah oo dad badan joogaan ninkan ayay cabida khamridu meel xun ka gaadhay heer uu ciyaarta soo xaadiro isagoo cabsan taasi oo sababtay in marar badan ciyaarta laga saaro ciyaarta kubadda cagta ayaa waxa uu ka fadhiistay 2004 waxa isku dayay inuu noqdo dadka xayeysiiya ama base faaleeya ciyaarta kubadda cagta hase ahaatee isku daygaasi waa uu ku guuldaraystay sababo cillado ka haystay dhinaca dhawaqa codka awgi arrimaha kubadda cagtu markii ay ka soo xidhmeen waxa uu isku dayay habab kale oo lacag ku sameeyo waxayna ugu dambeyn la gashay khamar iyo daroogooyin ilaa ay guud ahaanba lacagtiisii ka dhammaatay heer ay xaaladiisu gaadhay in uu jiibsado wadooyinka isaga oo faramaran oo aan xataa haysan wax wanaagsan u xidho intaasi kadib ninkan warkiisu waxa uu gaadhay ciyaaryahanno isugu jira kuwii hore iyo kuwii dambe waxa xoogay dhaqaale ay iska ururiyay si ay ninkan guri u dejiyaan dhowr ciyaaryahanno uu ka mid yahay Rooney, Gerrard, John Terry iyo Gary Lineker saaxiibadiisa ninkan u dhow ayaa waxa ay sheegeen inuu 14 milyan oo euro ku khasaariyay khamrida daroogooyinka iyo mashaariic fashilmay ilaa uu ku dambeeyay inuu noqdo faqiir aan waxba haysan oo jiibsada darbiyada magaalada London Emmanuel waxa uu ahaa ciyaaryahan ka soo jeeda waddanka Ivory Coast halkaasi ayuuna ku bilaabay xirfadiisii ciyaareed ee kubadda cagta waxauna waqtigaasi ka tirsanaa ISEC Mimos muddo kadibna waxa uu wareegay Belgium iyadoo ay sabab u ahayd inay noqoto xirfadiisu mid heer sare ah waxauna muddo yar kadib ku biiray kooxda Arsenal waxauna noqday ciyaaryahan la yaqaan oo magac iyo maamuus leh hantidiisa ayaa marba marka ka sii dambaysa kor u sii kacday waxauna noqday nin milyaneer ah hase ahaatee muddo kadib waxa uu caashaqay gabadh cadaan ah gabadhiina waxay is arooseen 2004 maruu waraysi siinayay isagoo ku sugan Turkiga warbaahinta Mirror ee laga leeyahay dalka Britain 2017 ayaa waxa uu ka warramay qisada dhexmartay isaga iyo xaaskiisii waxa uu yaraanteedii si wacan waxba ma baran arrintaasi oo sababtay inaan arrimaha dhinaca maaliyadda aan ku aamino xaaskayga waraaq kasta soo horrigto ayaan iska saxeexayay aniga oonan isweydiin ahmiyadeeda waxa uu yiri inta aan Turkiga ku sugnaa sanadkii waxa aan qaadan jiray 8 milyan oo euro 7 milyan ayaan iyada u diri jiray iyo caruurteeda si ay lacagtaasi u maarayso ugu dambeynna hantideedii oo dhan ayay igala wareegtay haatanna waxaan ku jiraa maqsin yar oo kira ah ma ogi goortay askartu iman doonto ay maqsinkaasi iga dhex qaadi doonto mararka qaar waxa aan damiyaa leerka si aan wajigayga loo arag oo loo aqoonsan inaan qolka ku jiro hariya habeen cabsi ayaan ku seexdaa oo ku soo toosaa mana ogi goorta ay booliisku iman doonaan oo ay qaban doonaan waxa aan si xushmad la gargaar uga dalbanayaa qof waliba oo caawin karaya sidoo kale kooxdeedii hore Arsenal haddii ay qaadanayaan diyaar ayaan u ahay inaan u ciyaaro markii uu dibtiisa caalamka soo bandhigay ayaa markii ugu horeysay waxa soo caawisay kooxdiisii hore ee Galatasaray sidoo kale dalka Turkiga gudihiisa ayaa waxa laga siiyay shaqo